كرسي وكا موجودة ما يحلك إنه لا يفرقوي halka soo marka waka kursiga halka ka muuqdo leeshay ku dhaanteynay waxa weeye halka kursigu yaalo iyo talaalada inta ka sokaysa halka iyo intana buuxday halkan waxa hogaaminayay inay dhahan waa shaambal oo ciidamada Tigrayga macnaha waa hoteeliyo horin ban filaya yaa kala agaasimaha ciyaaraha iyo gudoomiyaha gobolka ninkii markaa u joogay ninkii xisbiga u joogay kii u joogay taliyaha ciidankan la yiraahdo ii sheeg nayu booliska halkan waxa taagnaa laba baroon halkan ciidanka cirka yaa meesha degan oo halkan ay deganayaan saraakiisha ciidanka cirka halkan ay timid meeshana maalinka lagu alla bariyay munaasabadii halka kulka ka degtay yaan ogaaday inaad soo baxday kulkaas aan ogaaday aad markaas wata meeshii soo diray adoo halka fadhiya kaas xaqiiqdo ogaaday waa ku faraxsanahay in maanta inagoo wufuud isugu imaano meeshii noocaas ah maanta waa maalin weyn waxa maanta goday ka soo degay wufuud kala duwan oo marti sharaf ah oo ka qayb gali doonta shirweynaha afraad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxa sharaf noo ah in wufuudaas ay kamid yihiin Senator Ahmed Xaashi Dr. Zakariya Maxamed Amiin iyo rag kale oo fara badan abi halgabayaasha iyo Umar Xaashi iyo xisbiyo kala duwan oo ka socda madaxweyne Maxamuud Aadan waa ka xumaay waxa kale oo iyaguna socda xisbiyo aan isbahaysiga ku jira sida xisbiga OLF xisbiyo aan wada shaqo naga dhaxayso sida IJMA marti sharaf kale oo fara badan waxa iyaguna jira isbahaysiga guud ee xoreynta Soomaalida wasarda ayaa iyaguna jooga runtii maanta waa maalin weyn oo xusid mudan halkan sidii marka dhawada sheegay waxa weeye meeshii halgamay qalbi dhagax lagu xiray maantana taas oo wad u jeedaan in wufuudii ka timid Itoobiya magaalada Addis Ababa iyo wufuudii xamal ka timid iyo kuwii Dirdhawe ka yimid iyo kuwa kale oo hadda soo qulqulayo oo ilaa galabta ila soo gaari doona oo caalamka ka socda sida Mareykanka South Africa iyo Canada iyo Australia intaba shanta qaaradood marka waa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo heetay oo lagu noolaado taana waxa keentay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya adkaysiga adkaysatay iyo shacabka Soomaaliyeed taageeradeeda ay u fidiyeen iyo madaxda halgankan garab istaagtay si heer laan oo garab istaagtay runtii waxa xusid mudan markii mudane qalbi dhagax la xiray madaxdii garab istaagtay maanta inoo joogta sharaf bay noo tahay adkaysiga shacabka Soomaaliyeed iyo halgankii dheeraa ee dhiigal loo huray ayaa maanta natiijada dhaliyay guushi wali maynaan gaarin waxa weeyaan halgankuu dheer yahay geedigu socon ilaa la gaarayo yoolkii aan higsanaynay midnimo mintid iyo isku tashi baan ku soo wadnay tii baan ku wadaynaa ummadda Soomaaliyeed wax kala qaaraya ma jiro Itoobiya waxa weeyaan dimuqraadiyad baa ka dhalatay dimuqraadiyadda waan taageersanahay haddii laakiin wax yar oo isbedel ka dhaco waxa weeyaan wax yar oo isbedel hadduu ka dhaco hawshaas waan ka tashan doonaa insha Allah laakiin dimuqraadiyadda iyo isbedelka ka dhacay waan taageersanahay wax walbana goobteeda iyo waqtigeeda iyo markaas